maanta waxaan ku sugannahay deegaanka Qayb howlgalkeenu wuxuu ku soo ekaaday deegaanka Qayb dhex taagannahay insha Allah ilaahay hadduu idmana waxaan rajaynaynaa deegaanada galmudug ee dhiman ee gacanta khawaarijta ku jira in laga saaro arrintani ma ahan mid maaragtay dheeldheel ku timid waa arrin laga shaqeeyey waqti badanna la geliyey hadduu ilaahay idmana waxaan rajaynaynaa in deegaanada galmudug ee aan annagu ka howlgelayno muddo kooban laga weyn doono khawaarijta insha Allah tacaala hadduu ilaahay idmo sidoo kale waxaan rajaynaynaa deegaanada kale ee nagu teedsan sida Hirshabeelle iyo maaragtay deegaanada kale ee la midka ah ee khawaarijtu ay baryahan ay dagaalka iyo shidada ka wadaan waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inay gacantooda ka bixi doonto maadaama dadkii iska madhahayo dadkii iska lahaa deegaanku go'aan bay qaateen waxay go'aan ku qaateen inay khawaarijta iska saaraan ma aqbalayaan dadka deegaanka aan ka hadlayo degan ma aqbalayaan in maanta ka bacdi loo diin loogu soo gambado shaar diimeed in loo soo gashado ma aqbalayaan waxay go'aansadeen inay iska dulqaadaan dadka tuugada ah oo shaarka diimeed soo gashaday hadduu ilaahay idmana go'aan bay naga tahay waana iska dulqaadaynaa meel kastoo ay joogaan waxaan doonayaa sidii sarkaalkii iga horreeyay oo sheegay inaan baaq u diro dadka deegaanadan u dhashay oo ay qaldeen oo u qaatay inay iyagu maaragtay adduunka oo dhan ay gacanta ku haynayaan waxaan leeyahay nimankaa wakhtigoodu waa dhammaaday danihiinna qabsada isaga taga ka firxada oo ka taga oo ka baxsada meel kasta waxyaabaha ay samaynayaanna waad aragteen waxyaabaha hadda aan ku aragnay dhufaysyadoodii waxaa ka mid ahaa dhalooyin qamro ah oo lagu cabayay meesha oo aan idiin soo bandhigayno hadduu ilaahay idmo marka wax diina shaqo kuma lahan waa dad maaragtay waxyaabo kale iyo ujeedooyin kaloo badan leh waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo inta hartan inaan ka saari doonno waxaan isu baaqaynaa ciidamada noocyadiisa kala duwan oo meel walba howlgalka uga jira waxaan leeyahay walaalayaal waa dhow yahay guushii waa dhow yahay alaa inna nasrallahi qariib nasriga ilaahay waa dhow yahay nimankaasna wakhtigooda waa dhammaaday howlgalku meel walbuu ka socdaa waxaan leeyahay meel walba howlgalku ha ka socdo allahu akbar allahu akbar walillahi alxamd